wareejina ayaa ka dhacday maanta magaalada Laascaanood taasi oo xilka kula wareegayay guddoonka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sool. xafladaasi oo ka qayb galeen qaar ka tirsan mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada maamulayaasha tirsan laamaha kala gedisan ee wasaaraddaasi ay leedahay iyo weliba maamulka degmada iyo xafladaasi si weyn loo daasimay. waxaana ugu horreyntii isagu halkaasi ka hadlay maamulka degmada Laascaanood oo tilmaamay in ay tahay wasaaradda waxbarashada wasaaraadka ugu muhiimsan ee gobolka sida weyn uga shaqeeya. aan kala dardaarmaya gudoomiyaha cusub waxbarashada waa meesha koowaad ee wadnaha magaalada marka la eego waxbarashada. haday waxbarashadu hagaagto dee gobolku dib u ka hagaagaya. haday laakiin waxbarashadu laga xumaato ciyaalkeenu ay ku biiraan muxuu ahaa dhulka dee aynu naqaanay magaalada dee ugu xune tiifiyada xunun ee la dhigay iyo balaayada iyo baaska iyo waxayna garanayn ay ciyaalku halka ku biiraan wuxuu way naga xumaanaya. gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee isagu xilka haatan loo wareegay ayaa si qoto dheer looga hadlay baahiyaha waxbarasho iyo sida uu dhinaciisa diyaarka ugu yahay in uu ugu adeego wasaaradda waxbarashada isagoo tilmaamay in uu garab weyn ka filayo in dhammaan shaqaalaha wasaaraddu ay gacan ka siiyaan la-aantoodna ayna waxba soconayn. inta aan meesha joogo ama ha yaraato ama ha badnaatee inta aan meesha joogo aniga waxaa laga fashaaday cadaalad waa number 1 waa kalsooni iyo midnimo iyo daacadnimo.